marka waxaa ceeb noqotay 19 jir 20 jir inuu guursado ceeb ay noqotay 19 jir iyo 20 jir in gabar saaxiib ay yeesho oo iskuulkii ka imaato oo guriga la imaato oo darsi isla akhristaan oo marmar isku fogtaan ceeb ma ahan waalidiintu way ogyihiin marka waalidka cunugiisa inuu wax farfaraysanayo og yahay ku daawanayo ilaahay agtiisa xisaab baa u taalo oo istidaacadina hayo inuu u guuriyo inuu asturo caalamka wax kasta la sheego 18 jir wax lagu leeyahay baby waay dagaala dhahda anaka ma dhihin laakiin 15 jir qofka duu gaaro aqaan gaar hadduu u baahan yahay waa loo guurina hadduusan u baahnayn inaad ku qasabta ma ahan laakiin wiilkaaga iyo adiga waxaa idin dhex yeelo wada tashi iyo wada sheekaysi markaasaa marka go'aanada meesha ka soo bixi doonaan jazaakum allahu khayr waa qaari quraanka bartaa oo wax bartaa nimikana guur buu diyaar garoobay ama uu guursadayba maanta reer buu leeyahay arrintaas maanay waxbarashadiisii iyo quraankiisii ka hor imanayn ama caqabad ku noqonayn awalan saad ogtahay walaal cilmiga nuur waay nuurka ilaahayna qof caasa ilaahay ma siiyo marka qofka markuu xumaan iyo dhalinyarnimo uu ku dhex jiro oo dee uusan dhowrsanayn cilmigii diiniga ah maba baran kara gebi ahaanba sababtu maxay tahay cilmiga nuur waa ilaahayna nuurkiisa qof caasiya ma siiyo marka waxaan aaminsanahay ilmaha marka loo guuriyo markaasay waxbarashadii iyo dadaalkii runtii boqolkiiba boqol ay bixin karaan maadaama uu dhowrsan yahay oo xaaraan uusan fiirinaynin oo dandhiisa meelaha kale la raacaynin oo xaajadiisa gurigiisa iyo wixiisa ku filan yihiin waxaan aaminsanahay markuu guursado inuu insha allahu tacaala boqolaal qof ay ka badan u kor dhaafayo meherkiisa hore wuxuu ka soo dhacay magaalada muqdisho maantana arooskiisiiba hargeysa ka dhacay maadaa doortay inuu hargeysa ka dhaco arooskiisu allah fiik nacam anaa doortay jacayl aan u qabo hargeysa fadli ay nagu leedahay maadaama waxbarashad meesha ay ka bilaabeen ana dabcan reer hargeysa waan ahaan jirayoo waxaan degnaa ina mooge gurigii meesha uu ku yaalay inkastoo dib aan u iibiyey laakiin guri baa meesha ku lahaa waxa weeyaan dee nuur badan iyo khayr badan iyo macallimiin khayrka hadda waxbarashadan horumarka aan ku gaarnay nuurka meeshaan ka qaadan hargeysa ahayd maadaama hargeysa xaq nagu leedahay waxaan u doorbidnay in cagalgelkiisa hargeysa uu noqdo arooskii xafladdiina qayb ka siina hargeysa aanan muqdisho aanan ka wada dhihin jamiican